soo gaaray nin Soomaali ah codkii iyo fariintiis wadanka Soomaaliya uu joogay dadka dibadaha ka yimid buu ahaa cudur baa ku dhacay waa jiraday isbitaaladii gudaha in la daaweeyo la isku dayay laakiin waa laga qustay jarmalku aaday waa la baaray waxay ku yiraahdeen dhaqaatiirtii xanuunkan ku haya wax qaldan oo isticmaashay ayuu ka yimid maxaad cunto waa ka gudbay wuxuu tagay Holland Netherland asagoo isbitaalka ku jira ayuu fariin soo duubay fariintaasi wuxuu ku abhinayaa kula hadlayaa ummadda intii wax garada oo culimadu ka mid yihiin waxa uu sheegayaa isbitaaladii iyo dhaqaatiirtii markay baadheen waxa lagu yidhi cunto dhacday oo waqtigeedii dhammaaday ama daawo dhacday baad cuntay من هذا كورة من هذا يا ولد بالباج لا هو بالبالية دتك بالباج وأهم دتك بالباج والله دتك إذا قاعد وهري دتك مجر دتك ما أنتي والله إركانيو مجرت طبعا كيوي إيتاي أصلاً وياه إحنا لما قاعد عاتير تمركي تنادى إيه ورمان xanuunkoodu sonkorteeda kor bay u kacday irbada la dhacay cudurka ku hayana kaasu ka socda isagoo sariirta jiifa oo isbitaalka ku jira ayuu fariinta soo duubay hal suuro way laakiin kumanyaal Soomaali ah ayaa waxay u baaba'ayaan isla kiiska mid la mid oo isbitaalada u yaalaan yaa daawada dhacaysa u keenay yaa cuntada dhacday u keenay yaa cuntada ayda iyo bisaduhu cuneen oo loogu talagalay yaa u keenay yaa ka ganacsaday Soomaali iimaan la way waa kii idinka dhashay waa ka idinku abtirsada waa kii reerkiina aha waa mid laga yaabo masaajidka inuu idin la soo galayo waa mid laga yaabo inuu idinka xamaasad iyo xiiso badan yahay ayaa saa ummadda u baabiinaya gumaad qarsoon way saas daraaddeed waxaan u dhaxaynaa gumaadka xabadda iyo gumaadka daroogada iyo gumaadka cuntada dhacday iyo gumaadka nabadgelyo darrada iyo gumaadka siyaasad xumada iyo gumaadka qabyaaladda intaasoo gumaad baan u dhaxaynaa dadka noocaas samaynaya su'aasha isweydiinta leh waxay tahay aaway islaamnimadii aaway iimaankii aaway diintii aaway alla la kulankii aaway aakhiradii aaway dadnimadii aaway insaaninimadii iyo bini'aadamnimadii iyo danqashadeedii aaway xataa haddaadan diin lahayn bini'aadamnimadii aaway نبينا وحليه صلوات ربي وسلامه عليه حديث كمستورد من الشداد الإمام البخاري في الأدب المفرد كسو صاري والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكله روحي الروح مسلمة هل عنتان كحنا هل عنت هل لقمته روح مسلمة السبب تيسير نبكي سكعناي فإن الله يطعمه مثلها من جهنم انت إلاك بمالنت جهنم يا مالنت قيامة جهنم لقى عنسين دونا أو لقي دونا سيدو كلا الروحي كل بستا روح مسلم السببتي لبس كهلا أو در كهلا روح مسلم ديبكيس ديكيس عافيمات كيس انت إلاك بمالنت قيامة جهنم إساقنا مرا لوغا ديكي دونا لهوين دونا هذا أما بطسو أما يريسو ربحة كفائدة انتظر عيكينا داود على عنسية وحق الربحة كهلا مال من نولادا
laakiin ballan rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku galay rasuulkiisuna inoo sheegay maalinta aad geeriyootaan oo dhimataan hawl baa idin taal ma sii noolaanaysaan dheregte guryo ka dhisate naaga ka guursate carruur ku korsate magac ku samaysate jaah ku samaysate laakiin ma sii noolaan doontaa iyo xoolahan ma ku noolaan doontaa ma sii cuni doontaa su'aal isweydiin war bini aadamkani see u yaallaa wargaaladii baa waxay ka xishoonaysaa ka yaxyaxaysaa bini aadanka caafimaadkiisa in laga ganacsado oo noloshiisa laga ganacsado oo la baabi'iyo war dadku waa dadkaagii war waa walaalaha war waa muslim war abtirkaagay leeyihiin war waa dalkaagii war waa dadkaagii war aaway damiirkaagii aaway dadnimadaadii aaway xataa haddaad diin lahayn dadnimadaadii aaway bini aadanku waa naxaa waa naxariistaa waa turaa aaway naxariista ummaddan aad baabi'inayso hindiyaan tegey ragga hindiya nin jooga ka mid ah oo xogogaal oo ganacsadaa wuxuu ii sheegay nin soomaali ah ayaa nin hindiya oo muslim oo warshad cuntada samayso leh ayaa wuxuu ka soo qaadi jiray qamandida iyo bariiska iyo cuntooyin marka cuntada bini aadamka la diyaariyo loogu talagalo eyda iyo bisadaha wuxuu kaga soo qaadi jiray ninka hindiga muslimka ah waxaan u geynayaa waddankanaga bisada iyo eyba ka jiro kuwaasaa lagu quudinayaa ninka Soomaaliga cuntada wuxuu u soo dhoofanayaa Soomaaliya cuntadii markay timaadana bini aadamkii Soomaalidii buu ka gadayaa ninkii hindiga ahaa muddo dheer kadib wuxuu ogaaday ninkan cuntadan inuu Soomaali u geeyo cunaan kadibna wuu ka joojiyo wuxuu leeyahay kaama gadayo hindi baa u naxaya Soomaaligii ka dhashayna caafimaadkoodii buu ka ganacsanayaa cuntadii eyda iyo bisadaha inuu siiyo markaasaa waxaan leenahay Soomaali yaa idin baabi'iyey yaa idin cunaya yaa dawladnimadiina ku ciyaaraya yaa caafimaadkiina ku ciyaaraya yaa noloshiina ku ciyaaraya Soomaali ma aha bini aadamku markuu iimaanka beelo Soomaali ma aha markuu iimaanka beelo muslim ma aha markuu iimaanka beelo bini aadan ma aha waa yey waay waraabad duurjooga waay ma aha bini aadanka aad garanaysay ma aha nabigeennu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wuxuu leeyahay xadiidka tirmidi soo saaray min xadiidi kacb bin maalik ruuxa marka uu dadaalkiisu noqdo sharaf iyo magac kursi iyo adduunyo iyo xoolo iyo hanti diintiisa siduu u baabi'inaya dadnimadiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa ay u baabi'inayso arrinkaas wuxuu nabigu ku miithaaliyey sallallahu alayhi wasallam sidii laba yey oo gaajaysan oo ari lagu sii daayay oo kale yeyda ma taqaana hadduu gaajaysan yahay arina lagu fasaxo waxba reebi maayo ruuxu mar hadduu dadaalkiisu noqdo kursi fuul kursigana ilaasho magac iyo jah ilaasho ribix iyo adduunyo hel intaa hadday noqoto yey gaajaysan oo ari lagu sii daayo oo kaleba rasuulku leeyahay salawaatu rabbi saasoo kale waa di'aab iyo yey waya bini aadan ma aha bal nabigeennu siduu sheegay sallallahu alayhi wasallam bini aadamku wuxuu noqon karaa marka dambe markuu bini aadannimada ka tago jirkiisu jir bini aadan weeye laakiin qalbigiisu waa qalbi shaytaan xadiidka fi saxiix muslim من حديث حذيفة بن مالك من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه حذيفة بن اليمان وحو النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة كذا شيء ذا وحى إيمان دون مضح لا يهتدون بهدايا هنون كيجيكم السعدان ولا يستنون بسنتي سنة دين مصر ليسان يانو طريق يجي مهيان وسيقوم فيهم رجال
madaxda khariban dhexdooda waxaa ka kici doona rag maxay quluubuhum quluubu shayaatiini fii jithmaani insin quluubtoodu waa quluub shaytaan jidhkuna waa jidh bini aadam buu rasuulku yidhi sala allahu calayh waalihi wasalam jidhku waa jidh bini aadam jidhku waa jidh soomaaliyeed ninku waa soomaali waa faarax iyo cali iyo maxamed waa ina hebel waa ree hebel masaajidka inuu soo galayaa dhici karta inuu soomayo salaadayaa dhici karta inuu kacbada aadayo xajinayo cumrada aadayaa dhici karta laakiin qalbigiisa naxariis darrada iyo diin darrada ku jirtaaye waa qalbi shaytaan quluubuhum quluubu shayaaiin oo hadduusan qalbigaagu shaytaan ahayn ma ummaddaasaad baabi'in lahayd ood caafimaadkeeda ku ciyaari lahayd oo cunto dhacday ka ganacsan lahayd oo daawo dhacday u keeni lahayd haddii qalbigaaguusan qalbi shaytaan ahayn wuxuu naxariisa kugu jirto wuxuun turida kugu jirto imisaa isbitaallada yaalla bal hindiya tag isbitaallada waaweyn ee waddanka ku yaalla markaad dhex marto marmarka qaarkood soomaalida dhex joogta ee caafimaadka u timid iyo hindida waddanka u dhalatay ee 1.5 bilyanka ah way isku dhowaanayaan way kula taa waxaad u arkaysaa inay isku dhow yihiin war ummadda ayaa baabi'iyey aawayse dawladdii ilaalin lahayd aaway fayadhowrkii aaway tayadhowrkii aaway kuwii waxaan ka ilaalin lahaa oo yeyda iyo xayawaanka iyo duurjoogta ka waardayn lahaa aaway waxaa ka dhici karta qaar ka mida inay ganacsiga qayb ka yihiin qaar daroogaa lagu baabi'inayaa yaa daroogada ka ganacsada ma yahuud baa inoo timid ma maraykan baa inoo yimid ma yurub cadcad baa inoo timid yaa daroogada ka ganacsado ummaddan baabi'iyey dhallinyaradoodii yaa caafimaadka ummadda ku ciyaaraya kii ilaalin lahaa soo kan kursiga ku dagaalamaya ma aha ee dhiiggeedii xabadda ku daadinaya ma aha kii loo baahnaa inuu ilaaliyo ummaddan iyo sharafteedii iyo caafimaadkeeda iyo diinteeda yaa inoo maqan ummad ba'day ayaa ku leh dalba ayagu yaa ku leh mujtamacba ayagu yaa ku leh wamaca daalika waxa weeye meelahaan taagtaaganayo fadhiyaan niqaashaynaa hebel baa hebel ku duulay qabiil hebel baa qabiil ku duulay hebel baa kursiga ku soo noqonaya mid baa ka tegay mid baa fuuli doona war waynu rogmanay maxay tahay waxaan ka niqaashayn ilaahay tabaaraka wa tacaala rabbulciza waxaan weydiisanaynaa ummaddaa inta dhibaatada ku haysaayay ilaahow intaad hanuun la damcday soo hanuuni inta aadan hanuun la damcinna ilaahow baabi'intooda soo dedeji oo rabbiyow caafimaadka ka qaad oo rabbiyow halaag oo rabbiyow tabaaraka wa tacaala ummaddaa sharkooda ka qabo rabbiyow waxaan ku weydiisanaynaa inaad kuwaas si degdega u ciqaabto maxaa yeelay addoommadaadii caafimaadkoodii iyo diintoodii iyo adduunkoodiiba kuwa duulaanka ku ah